ما هينا الله المستعان واحد بدا سميس aad baan ugu faraxsanahay inaan xaggan aan ku kulanay run ahaantii intiina fadhida waxaan ugu hambalyeynaya bulshada waxaa jirta 80% iyo 20% wax leeyahay 20% ka ama 1% ka bulshada kamid ah waxaan xasuustaa isbedeladii nolosheeda ku dhacay ama xilliyadii ay dhaceen waxay ahayd markaan ka qayb galay madalaha sidan oo kale ah muuqaalkan waxa sponsor gareeyay Canva waa app game changer ku sameeyay dhammaan graphic design industry. Waagii hore waxay ahayd inaad baratid Photoshop, waxay ahayd inaad baratid Illustrator, waxay ahayd inaad baratid dhammaan software-ada loo isticmaalo si aad design u samaysid. Laakiin Canva waxa ay leedahay boqolaal iyo kumanaan kun oo template oo kuu saamaxaya inaad design samaysid adigu. Maanta dunida online design kama maarmi karaysid. Haddii aad business haysid iyo haddii aad qof caadi tahay oo social media ama Instagram wax soo bas korinaysid. Hoosta ayaan linkiga nii dhigay dhammaantiin. Qof kasta oo linkiga isticmaala wuxuu leeyahay 30 cisho oo free ah oo na lacag bixinayn. marka waxaan kuugu hambalyeynaya 1% ka bulshada kamid ah ee mustaqbalka iyo meesha quruxda badan u socda ayaa taas baan kuugu hambalyeynaya runtii walaalo badan oo inaga mid ah inaan garanayno saaxiib ahayn iskuul wada dhiganay meelo badan ka wada baxnay baa macquula markaan ahaa dugsiga 17 jir meelaha markaan ahaa 18 jir asxaabteedii qaar kamid ah inay nala fadhiyaan baa macquula waxa dhacday inaan ku dhacay iskuulka galaaskii form 3 inaan ku dhacay ayaa dhacday deet iskuulkii markaan ku dhacay waa ka baxay iskuulkii markaan ka baxay waxaan bilaabay inaan sheekadan waa failure to failure waxaan bilaabay inaan ganacsi furto ganacsigaas oo ahaa internet cafe-gii markaan furtay muddo 3 bilood 6 bilood markaan waday ganacsigiina waa iga kacay internet cafe-gii waa 2010 markii uu soo galay waan ka baxay oo waxaan galay xaggaas iyo waxaan galay gaari weyn oo xamuulan iska lahayn baan ayaan ka noqday xisaabiya deeta muddo 6 bilood markii aan la socday gaarigii waxaan ka noqday dilawar 3 sano noloshayda kamid ahayd insha Allah hadii la yiraahdo hadda documentary baan ka soo sameeynayaa siday ahaan jirtay noloshaydii shaqo marka gaariga wadi jiray dhawaan insha Allah documentary baan ka soo sameeynayaa markii aan 3 sanadood oo noloshayda kamid ah nolosha dilawarnimo oo sawiran karaysan nolosha gaadiidka iyo xayraannimada iyo courier biroola la yiraahdo wad garan karaysan wax mustaqbal oo aan arkay habeeraatay ma jirin school ma tagin it was adeeg bay hay wad garanaysan gawaarida xeebta taga ma aha nolol fudud ma waxa la galaa dhiiri waxa la galaa roob waxa laga dhacaa buuro taas baan habeen iyo dharaan soo jeedi jiray waan iswaayay warni waxaan siri nolosha wax ka weyn baad qaban karaysaa maalmaha kamid ah 2014 iyadoo la joogo ayaa Maxamed Cumar markuu bilaabay hadalka oo TV-gii rayo dhamaantii wada daawan jirteen baan maleynaya ayaa muuqaaladiisii ugu horeeyay kamid ah daawada muuqaalka wuxuu kaga hadlayay ahaanshiyo iyo lahaanshiyo waxaad leedahay waxna waa wax adigu aad tahay deet waxaan isweydiiyay oo warsamo waxaan leedahay gaarigan iyo noloshan waxaan dareemay nolosheedii inteedii badnayd oo prioriteedkii uga yeelanay gaarigii iyo noloshii shaqeyn madoobay deeta waxaan siri maxaad ahaanshiyahaagii uga shaqeyn weyn nin dhalinyaro oo 20 jira oo maanta wax badan sameynaya deeta waan kacdoomo waxaan u kacdoomay xaggaas iyo Yurub si aan ku tagaba hawa noqotay markaan Yurub tagay waxaan u tagay nolol adag oo nan filayn ayaan tagay waxaan galay camp waxaan qol ku seexan jirnay 10 qof waxaan Allah musta'an cuntada u gali jiray fiilo waxaan toddobaadkii qaadan jiray $7 malaakiin ugu yar $7 malaakiin ugu yar ka ugu yar maanta inuu break u qaadan ba macquula laakiin Europe iyo wadankii aan tagay waxaan u qaadan jirnay $7 ilaa maanta dadka tagayna u qaataan waan yaabay waxa igu dhacay fikir waxa igu dhacay depression waan yaabay waxaan si noloshii aad intaas oo challenge iyo intaas oo dhib aad u soo martay ma waxay noqotay Allah musta'an warsamo inaad $7 aad qaadatid alla ciidi iyo cad weynida waxaan idhi haddii maanta beel aad uga noqoto ma jirto wax aad wadankii kula noqotayna haba yaraatay ma jirto ama tan baad warsamo wax ku dhex noqoni ama beertaad gala dadku markay Yurub tagaana 3 xun bay kala baxaan dad beerta gala dad noloshooda faakiyaysta iyo 1% fikta u bax keebad noqonaysa warsamo ayaan nafteyda weydiiyay deeta markaan intaa weydiiyay waxa dhacday inaan shaqooyin badan adag baan ka shaqeeyay inaan kaco 5 subaxnimo inaan Allah musta'an
masaxaadaha ka shaqeeyo inaan musqulaha ka shaqeeyo inaan walxaalista ka shaqeeyo inaan waxyaabaha adag ka shaqeeyo si aan Allahu musta'aan noloshayda u dabaro intii markaan ka shaqeeyay waxaan isii warsamow israadintii baan inta ku jira waxaan isii warsamow niyo bilaadan shaqadoodu way adag tahay iyadoon taa ku jirno oo wallahi waxyaabaha qaar mararka qaar aydan idin cuntamin intiina xagga fadhida aydan ka shaqeyneen idinkoo booroma jooga aydan weligii ka shaqeyneen ayaan waxyaalaha qaar diyaabis marka waxaan warsamow sanaysa ma waa inaad meel uga baxdaa noloshan ama noloshan adaa ka adkaanaya ama iyada ka adkaanaysa labada wax ka dhaxay ma jirto marka xagga la joogo wala saawiyaayo waa familkii oo ninkii hala soo caawiyaa la oranayo waa la suuqa tagay ganacsi u furaa la oranaya laakiin xaggaas ma jirto nin Yurub jooga reerkii u tahay mas'uuliyad baa ku saaran reer baa ku sugaya naftaadiiba mas'uul ka sugaysa ama nin meel ka soo baxad noqonaysa ama nin Allahu musta'aan kufad noqonaysa ama nin fikta u baxad noqonaysa waxaan fikroon weydiiyay marka xagga mareeyo waxaan bilaabay inaan personal development sidii aan u dhageysanayay Maxamed dhiirigelintiisa mubaarak iyo walaalaheen Allah musta'aan ayaa waxaan helay in akhriska iyo Allah musta'aan aan xagaa ka helay waxaan bilaabay inaan wax akhriyo buugii ugu horeeyay akhriyay waxa la oranayay no excuses waxa qoran in la yiraahdo Brian Tracy buugaas markii aan akhriyay waxa iga soo baxay haddii aan naftayda maal geliyo oo maalgelin naftayda aan geliyo waxa ugu qaalisanana haysay naftayda taag wuxuu kaga hadlayay markaa 10% oo income-ka ku soo gala haddii aad naftaada ku maalgelisid in Allah musta'aan ay intaas iyo 10 jeer jibaarkeed ku soo bixi doonto maalin dhaweyd oo Nairobi ka hadlayay baan u sheegay dhalinyarada waxaan bilaabay in 10% oo noloshayda wixii kamid ah income-ka soo gali jiray markaas wuxuu ahaa Allah musta'aan 1200 buu ah 10% wixii soo galay in ayaan qaado in naftayda ku celiyo muddo 6 gudaheeda ganacsi aan anigu leeyahay baan watay transport baan soo iibsaday shaqan bilowday waxaan anigu aan leeyahay ka shaqeynay 6 bilood gudaheeda markaan wax akhrinay ganacsigii xagaas ayuu iga baxay deeta wax akhriskii sidii aan ugu wado waxa ii baxday inaan xagga lagu jiray inaan adduunku xagga u soconay bal ayaan ogaa waxa kaliya tan ogaa maalgelinta ugu qaalisan oo aan bixinayaa inay tahay naftayda gelinay inay tahay tan naftayda Allah musta'aan u sameeyay sababtan sheekada niila wadaagaya maaha sababtan sheekada niila wadaagaya maaha inaan goljilicdeedana tuso sababtan sheekadeeda niila wadaagaya waxa weeyaan haddii anigu aan bartaa ka soo baxay inaad adiguna ka bixi karaysid oo adiguna maanta sameyn karaysid oo adiguna maanta hadday ganacsi noqoto hadday waxbarasho noqoto iyo hadday meel kale noqoto baad u bixi doontaa waxay sidii haataba waxaan helay nin dhalinyaro oo ka waramaya inuu ganacsi lacag badan ka sameeyay ganacsiga e-commerce ninkii dhalinyarada baan follow gareeyay wax kastuu sheegay waan raacay step by step baan u raacay qalin book baan daba qaatay wuxuu sheegay baan raacay then it worked for me maanta xilligan aan joogno kuma nooli Yurub waxaan ku noolahay meeshan doona degaa 3 bilood meeshan doona degaa adduunka ka degaa 7 wadan baan tagay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh waxaan helay aqoon aan u baahanayn inaan qof u shaqeeyo aqoon aan u baahanayn inaan location waxa jira wax la yiraahdo location freedom iyo Allah musta'aan time freedom labadaas ba Allah musta'aan ka xoroobo labadaas buu hadafkaygu ahaa ma haynan Allah musta'aan wax badan sameeyay maanta dhalinyarada markaa waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan war wax noqoshadu waa ka Maxamed hadda ka hadlay wallahi wa billahi wa tallahi markastood in yar sare u baxdid waa inta in laba jeer jibaarkeeda waa inaad hoos u baxdaa waa inaad akhridaa waa inaad naftaada waxyaabaha muhiimka ku mashquulisaa waa inaad fadhidaa shaqooyinka borinka aad ka maqnaataa aad shaqooyinka borinka aad dadku ay diidayaan waa inaad qabataa waxa marar badan maanta inoo fudud oo waqti aad inoogu fudud waliba wadankeena aad ugu arkay inay dadku iska caadaysteen inay telefoonka maanta dhan iska wareejiyaan qofka TikTok iyo Instagram iyo Facebook iyo meelaha maalayacniga uu iska dhex joogo isagoo waxba ka faa'iideen imika hadda telefoonkayga markaan soo noqday caawadan baan telefoonkayga ku soo dejinay Instagram iyo Facebook 15 bil iyo 15 telefoonkayga kuma jirin kaliya tan marka laga reebay YouTube waxa aan uga tagayna ma aha inaan Allah musta'aan Instagram waa meeshan ugu jecelahay waa meeshan dad badan oo jecelahay ka wada xiriirno sababtan uga tagay ma aha Allah musta'aan inay wax igu soo kordhinay sababtan uga tagay waa in waqtigayga 3 saacadood oo kamid ah u qaadanay hadii 3 saacadood ee kamid ah aan ku bixiyo wax akhris hadii 3 saacadood ee kamid ah aan ku bixiyo in nafteeda ku maalgeliyo aan coaches qaato oo wax badan qaato wax badan bad Allah musta'aan ka faa'iideysa caaw waxaan ni sheegay Allah musta'aan meel badan oo challenge aan soo maray
sababtan iigu sheegin waxa jira walaalo badan oo maanta hanjab ku jiro walaalo badan oo maanta aan waxba arkayn walaalo badan oo maanta aan arkayn war haddii aan anigu soo maray adna wad mari karaysaa intaas baan ku soo koobaya assalaamu calaykum